guddida komishanka doorashooyinka Soomaaliland ayaa maanta shaqaalihii ka howlgali lahaa goobaha durugsan ee ka baxsan caasimadda gobolka Sanaag u kala diray qaybo ka mid ah shaqaalihii doorashada madaxtinimada Soomaaliland ee ka shaqeyn doona codbixinta doorashadaasi waxaana ugu horreyn halkaasi ka hadlay isla markaasina la sii dardaarmay howlwadeennada goobtaasi ka baxayay komishaneer Cabdifataax Ibrahim Xasan iyo gudoomiyaha komishanka ee degmada Ceerigaabo Master Sharmaarka oo ay maanta inooga bilaabeen wajigii koowaad ee kala dirida sanaaduuqda goobaha kamida gobolkan Sanaag gaar ahaan degmadan Ceerigaabo goobo kamida aynu maanta ka sii hawlgalaynay si ay u sii ambabaxaan jidka order daraadeed oo intii saaka lagu guda jiray hawshaas waxaa rarmay qaybo kamida goobahaasi oo hadda ambabaxay oo ay iyadoo ay galbinayaan ciidamada amniga si ay u sugaan goobta amnigeeda sidoo kalena ay ku lamaanayeen xisaabta qaranka saddexda xisbi qaran si ay goobaha uga noqdaan muraaqibiin u joogta xisaabta qaranka guud ahaan ay naga wada dhameystirmi doonaan dhammaan goobaha gobolka Sanaag oo dhan oo ku jirto degmooyinkeeda Ceel Afweyn Garadag Baran iyo degmada Ceerigaabo ay tahay in looga dambeeyo shaqadii iyo hawshii ay wadanayeen wixii Soomaaliya ah ama soo dhaweyn ah ee ay mudan yihiin dadkaasina inaan lagu sooriyo lagu soo dhaweeyo inaan wax aga jugleen lagu sameyn inaan la isku dayn wax musuqmaasuq in ardayda lagu baro inkastoo aanay kaba yeelahayn ogaan soo gabagabeyn doono waxayna nagu socotaa jawi degan oo hufan oo hagaagsan oo ay goobjoog ka yihiin dhammaan cidii shaqada ku lahayd haday ahaato xisbiyada qaranka haday ahaato observerskii kale ee ururada maxalliga waxaan insha Allah ku boorinaynaa kulana dardaarminaa dadka goobaha tagay inay si habsami leh oo kalsooni leh oo wixii aan barnay komishan ahaan ay fuliyeen Farxad Maxamuud Geedi Bulsha TV magaalada Ceerigaabo.